الله وبركاته وانا دي سلامي ميل كستا adduunka ka joogtaan saxaabta qaaliga channelka ee ku xidhan soo dhawaada baan dilayaa saxaabta waa miskiintiin yareed waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan sida anigu caafimaad qabaan hortiina ugu soo laabtaanba aan idin soo hor fadhiistay insha Allah waxaan leeyahay xanuunsan ilaahay caafiyo inta dhibaataysan ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado inta markaan ku gudbaa asxaabta qaaliga soo dhawaada baan dilayaa asxaabta programka ka hadlayo taan anu guda gelin waxaan rabaa wiilka halka idinka muuqda waa wiil sheekha inaad channelkiisa booqataan oo markaasna subscribe iyo share iyo like aad markaa u saartaan waxyaabaha khayrka wax wanaagsan in markaas aad mar walba aad wax fiican maaragtay u samayso qofka markaa khayrka soo gudbinaya haddaad leegta ugu dadaasho iyo subscribe-ka adiga ay wax weyn ku tahay oo wax fiican ku noqonaysa marka wiilkaas booqda waa wiil sheekha channelkiisa booqda anigu waan ku xidhanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin idinkana ku xidhnaada saxaabta qaaliga channelkiisa halkaas idinka muuqda aad baad mahadsantiin saxaabta qaaliga subscribe iyo share u saara saxaabtiina kalena ugu sii share gareeya wanaaga waa la share gareeya wixii wanaagsan muuqaalku markuu soo gaarina saxaabtiina kale igu sii share gareeya aad baad u mahadsantiin asxaabta qaaliga maanta waxaan rabaa inaan horta laba clip inaan soo qaato hodan cabdiraxmaan clip ayaa rabaa oo iska baashaalsa inaan wada daawanaa asxaabta qaaliga markaasna waxaan rabaa inaan fikirkii aragtiyada waxa aan rabaa inaad ka weydiiyo inaad la wadaago bal videogan gaa ila soo daawo wardagtaga cabdiraxmaan dheero sheekh qotay ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay sheekhadii ka dhigo oo ilaahay fanka dhanbeyga madoobeeye ya ducada aamin dhaha ya sadaqada wad kinuna dhaxal buu yahay dalkayga ku weynida ku dagaanami naftayda ku dheerida naftayda kinuna dhaxal buu yahay dalkayga ku weynida qaaliga xirtiin inaad ila soo daawateen videoga hodan cabdiraxmaan ee baashaaleyso waxaan rabaa inaan weydiiyo maanta waxaan ka hadlaynaa afar hablood waan ka hadlay doonaa insha Allah aniga fikirkayga aragtideeda adigana fikirkaaga aragtidaada waa imihiin waxaan ka hadlaynaa asma love iyo hodan cabdiraxmaan miyis dagaaleen muxurgufa dhex taala haddii jawaabtaadu haa ay tahay oo aad wax ka ogtahay xaggoosa nagula wadaag tan waa aragtideeda waagii hore asma love iyo hodan cabdiraxmaan aad bay saaxiib ahaayeen dhexdooda lama geli jirin laakiin hadda waxaad moodaa xurguf inay magaranaysa ay xurguf dhex taalo oo aanay isku fiicnay asma saban iyo laakiin asma saban iyo hodan cabdiraxmaan isku fiicnay laakiin asma love daaqada laga saaray inantii asma love daaqada laga saaray waana dogeedeen khadra silimo iyo hodan cabdiraxmaan oo ku heshiiyey oo ku faraxsanay heshiiskoodaas ma waxaad isleedahay heshiiskoodaas sababi kara inay asma love iyo khadra cabdisilimo waa col oo isma arki karaan maadaama khadra cabdisilimo iyo hodan cabdiraxmaan heshiiyeen asma love daaqaday ka baxday waa aragtideyda waa dad saaxiibaabay ahaayeen asma love maalin dhaweyd ilmo yar bay dhashay xaflad bay dhigatay xafladeedii kamay soo qaybgelin ilmihii ugumay hambaleynin ma wada socdaan magaaladii wada joogaan marka taasaa aan arkay inay maaragtay aanay isku fiicnayn haddaad xooga ka hayso waa nala wadaagi kartaa aragtidaada iyo fikirkaaga xaggoosa nagula wadaag tani waa aragtideyda inaanay isku fiicnayn ayaan anigu arkay hodan cabdiraxmaan iyo asma love waayo waagi hore waa la isjeclaa waa la isku fiicnaa laakiin hadda xurguf baa jirto oo asma love daaqadaa laga tuuray asxaabe waayo khadra cabdisilimo iyo maanta hodan cabdiraxmaan way heshiiyeen maasha Allah dadkuna haddii awlaad ka dhaxayso ma coloobi karaan colaaduna waa iska soo gabagaboodaa saa ogtiin mooyaane nimcadareen waa tii guursatay maxaa la yidhahdaa asma love ninkeeda axmed weli waa tii guursatay marka khadra fiidooya soo wada duubeen nimcadareen khadra iyo nimcadareen waa saaxiibo isku dheeryihiin markaa saasay colaada ugu qaaday maadaama berigaas nimcadareen ay la soo safatay khadri ayay colaad xun bay u qaaday oo asmana markaa ninkeedii la guursaday gabadh kala guursaday sawir asxaabta marka xurguftii xumaantii ay u haysay waa kuwii markaa mursal iyo hodan is guursaday marka halkaasi jaaniskii ka faa'iideysatay oo hodan saaxiib la noqotay wax sii boonboonisay oo wax maaragtay waa aragtideyda adduunyadu waa tis la wada qasantay haddana waa kuwii sheekadii la dejiyey maasha Allah ay khadra iyo hodan heshiiyeen maadaama marka hore hablo walaala ahaayeen khadra cabdisilimo iyo hodan cabdiraxmaan laba fanaan oo markii hore asxaab ahaa oo iyagu iska kee jeclaa haddana shaydaan baa ka dhex faa'iideystay xurguftooda kuu soo dhameeyey
haddana way isku faraxseen waa badada awlaad ka dhaxayso maanta xumaamaba soo dhex geli karto waa tan ciyaalka dhashay tan ciyaalka dhashay waa walaalo mar haddii ciyaalku walaaliyiin xurguftii la iska daayaba waaba qurux badnaydba laakiin inantii asmas loof daaqadaa laga tuura markaa saxaabta aragtidaadii fikirkaaga xaggoose nugula wadaag sidoo kale waxaan rabaa marka halkaa kaga nimaado hodan cabdiraxmaan iyo asma loof aragtidiini fikirkiina xaggoose aad nugula wadaagtaan sidoo kale waxaan rabaa shaadiye sharaf iyo nadiro neyrus markay saaxiibka ahaayeen video kamid ah rabaa inaad ila daawataan saxaabta qaaliga bal ila soo daawo nadiiro iyo shaadiye sharaf dad saaxiibaaba ahaayeen ilkaax ku kala goosan jiray sidii saaxiibka u ahaayeenna waa tii shaadiye guursatay nadiirana waa tii hargeysa aaday in badan iyagoo markaas salaamaya iyadoon la arkin oo dadku odhan jira miyaad islaysan oo kii maalin dhexda ahayd soo hadlay midba midka kale iyadoo dacaayadeynaysa maxaa hadda sababay maadaamay nadiiro ay ka timid hargeysa oo weliba guursatay oo kusoo noqotay magaalada muqdisho maxay shaadiye sharaf ugu soo dhawan weyday baad is leedahay maxay shaadiye ugu hambaliyey weyday saaxiibadeed guurkeeda haddii xitaa way jiraan dad saaxiib ah oo waqtigu kala kaxeeyo oo mashquul la kala noqdaa way jirtaa laakiin waxyaabaha qaar mashquul lagama noqdaa saxaabta sida hambalyadoo kale qofku markuu magaaladii kusoo noqday in badan iskuulkiin dambeyseen waad soo dhaweynaysaa shaadiye sharaf dad kale hambalyeynaysaa instagramkeeda laakiin nadiiro umay soo hambalyen halkaasna waxaa taala xurguf aada u weyn haddaan anigu caqligayga reygayga ka dhibto waxaa jira nadiiro iyo nijmo nashaad inay hargeysa markay ku kulmeen ay saaxiibeen oo heshiiyeen laakiin markii hore xurguf ka dhexaysay nadiiro neyrus iyo shaadiye sharaf iyo nijmo nashaad waxaa jira waqti ay islaayeen oo isdagaalsanaayeen laakiin nadiiro maadaama hargeysa tagtay nijmo nashaad way heshiiyeen markii heshiin fiidiyooyin badan bay lasoo duubtay sidoo kale rasmi fanaanintaasi dhex gashay waxaa marka anigu caqligayga markaa isweydiiyey nadiira shaadiye sharaf halkaasay ka xanaaqday maadaama nadiira iyo oo nijmo nashaad ay isku fiican yihiin oo ay heshiiyeen waxmaantana iska dhex saareen shaadiyana halkaasay ka xanaaqsanta ayaan u malaynaya waa aragtidayda adigana aragtidaadii fikirkaaga nagula wadaag waayo waxaa jira fanaanin badan oo saaxiib ahaa oo hadda aan is arki karin baa jira markaa saxaabta qaaliga ah intaas ay idinla qaybsanayey fikirkaaga iyo aragtidaada xaggoose nagula wadaag haddaad wax ka ogtayna inay islaayeen xaggoose igula wadaag sidoo kale aan